Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa Al-Ithar Foundation oo idin soo gudbinaysa muxaadar ciwaankeedu uu yahay sifada soonkii nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxaana inoo soo jeedinaya rabbi ajr iyo xasanaad aan la soo koobi karin allaha ka siiye Sheekh Boqolsoon rahimahullah. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أرنت الله هو إيمان حقيقي ودنع والبعض مركز كجلال tilmaanta aan ka rabno haddaan ka qaadano waxa weeye tobanka sifo dadka guuleysanayo khayrka gaaraya waxa kamid ah wasaa'imiina wasaa'imaat, ragga sooma iyo dumarka sooma. waxaan daraaso ku samayn doonaa waa soonka haddii Allah qadaro subhanahu wa ta'ala. waxaan darsi doonaa sifatu sawmi nabiy sallallahu alayhi wasallam, nabiga soonkiisa tilmaantiisa iyo sida wahaa. Allah subhanahu wa ta'ala anagu ka kaalmo dalban waa sidoo nabigu u soomi jiray, mush inaan soon oo dhan ka hadli doono. nabiga sidoo u soomi jiray waxyaalaha nabiga laga soo naqliyay oo kali ah soonka khuseeyay salawaatullaahi wa salaamu calayh. annagoo markaa soonka ka dhigi doona mawaadiic dhowr oo kala bedelan. kolka waxyaalaha adduunka iyo aakhirada khayrka lagu hantiyo waxaa ka mid noqday soonka. saa'imiinta iyo saa'imaadku waa guulaysteen, waxaana loo diyaari doonaa ajri weyn iyo dembi dhaaf iyo guul adduun iyo aakhira intaba. rabbi wuxuu ku yidhi aayad kitaabkiisa ka mid a markuu soonka ka sheekaynaya aayado looga soo hadlay, wa an tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun. inaad soontaan aad bay idinkugu wanaagsantahay dad wax garanaya haddaad tihiin. low aad garanaysaan maslaxada soonku waa idin fiican yahay. soonka macnihiisa marka la eego dadku waxay u haystaan cuntada in la iska deeyo iyo cabidda. soonkuna intaa waa ka guda weyn yahay. axaadiid waxaa noo imaan doonta cajiib ah oo kugu radinaysa soonku inuusan ahayn cunto iyo cabid in laga soomo on. soon waxaa la yidhaha qofku inuu ka soomo wax walba oo laga mamnuucay. caloosha waa inuu soomiyaa, dhagaha waa inuu soomiyaa, indhaha waa inuu soomiyaa, xibnaha waa inuu soomiyaa. intaa markuu soomiyo xaaraanta ka xifdiyaa la odhan karaa qofku waa soomay. intii ka horrayda wax soon la yidhaha meesha ma yaallin. marka soonka wuxuu ka kooban yahay mawaadiic dhowr ah oo qaybsan. mawaadiicdaas oo u qaybsanta waxyaala soonka arkaantiisa uusan soonku ka maarmayn, waxyaala soonku ku buri doono oo mufsidaad oo fasaadinaya, aadaab soonka looga baahan yahay iyo fadliga soonka. waxaan ku horraynaynaa fadaa'isha uu soonku iska leeyahay guud ahaan soon oo dhan iyadoon la kala qaadin mid waajiba iyo mid sunnaa. markaa ka gadaal bisha ramadaanku fadliga iska leedahay in la soomo. markaa ka gadaal dadka soonka ka taga xumaantay iska leeyihiin iyo bal waxaa loo diyaariyay ayagana. arrimahaas ayaan eegi doonaa haddii Allah qadaro subxaanahu wa tacaala. rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi isagoo rabbigii ka warinaya xadiidul qudsi, allah subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa buu rasuulku yidhi kullu camali ibni aadam lahu ila asawm fa innahu lii wa ana ajzii bih. rabbi wuxuu yidhi ibnu aadam camalka uu sameeyo oo dhan asagaa iska leh, soonka mooyaane. soonka anaa iskale buu alla yidhi anaana amaal marinaya. xigmada uu alla u yidhi soonka anaa iskale anaana amaal marinaya macaani badan bay leedahay. waa marrada koowaade culammada in badan waxay yidhahdeen soonku waa cibaadada alla mooye aan cid kale lagu caabudin. wax lagu dawaafo way jiraan, wax loo sujuudo way jiraan, laakiin soonka alla lagu caabudaa. macnaha diimihii hore marka la eego soonka laguma caabudi jirin waxaan rabbi ahayn. xataa dadyowgii samayn jiray inay caabudaan asnaamta soon kuma caabudi jirin sanam soon lagu caabudo lama hayo. midda kale oo ka sii daran waxaa lagu leeyahay soonku waa cibaadada alla mooye cid kale ogaan karta aysan jirin. rabbi bis baa ogaan karaa. qofku inuu saka bixiyo dadku waa ogaan karaan, inuu salaad dukado waa la ogaan karaa, inuu xajiyo waa la ogaan karaa, laakiin inuu soomo qofna ma ogaan karto. farruuyaha inta soo tirtirto asagoo naable waa noo imaan karaa oo dhihi karaa soonkii way ahaya. luuq inta galo qol isku xiran cunto waa ka dhergi karaa. marka waxaad ogaatay sir ilaahay ogaan kara keligii inay tahay oo alla u gaara subxaanahu wa tacaala. soonka allah iska leh, saa darteed alla wuxuu yidhi wa ana ajzii bih, anaa amaal marinaya. anaa amaal marinaya xigmadda ku jirtaa waxa weeye waxaa loo kala qaadaa acmaasha ay dadku sameeyaan 7 qaybood. 7dana waxaa laga qaadanayaa nusuusta. 2 camal waxaa la garanayaa waxbay waajibiyaan. rasuulka waxaa xadiis saxiixa lagu weydiiyey mal muujibataan, labada wax waajibisaa waa maxay? wuxuu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam qofkii dhinta isagoon rabbi u shariig yeelin inuu janno gelayo, qofkii shirki ku dhintana inuu naar gelayo. islaamnimada rabbi laysu dhiibaa jannay waajibidaa, kufriga ilaahay cibaadada cid kale loogu dirana naar bay waajibisaa. labadaa muujibataan baa la yidhaha, saasay wax u waajibiyeen. waxaa kuu soo haray yacni acmaal. 2 camal waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu amaal mariyaa masalkooda 2 laabo, sida rasuulka axaadiis saxiixa ku caddeeyey sala allahu calayh wasalam. qofkii dembi niyeysta inuu sameeyo sameeyo hal dembi baa loo qoraa ee 2 laabo. waa fadliga ilaahay. qofkii inuu wanaag sameeyo ku talagala ee samay kari waayo duruufo ka reebtana hal ajir baa loo qoraa 2 laabo. labadaasna masalkooda lagu amaal mariyaa oo halkaasi taagan yihiin. acmaasha dadku ay sameeyaan ee xasanaadka oo dhan waxaa la amaal mariyaa ugu yaraan 10 baa la amaal mariyaa, sida ilaahay quraanka ugu sheegay man jaa bilxasanati falaw 10 amthaliha. wanaag oo dhan oo aad samayso 10 ba ugu yar iyo wixii ka sii badan.
صونك ألموي عد كلا تغان ما جرت أجريس حتى الملائكة لا يعرفون ملائكة إلهي ما يغاني أجريس دولية ما كشاكي كران ما قوري كران وما ديه كران قفك الصوم انت سأجرها الله قرأ انت سينتها الله قدقو ما ديه كريان أعمال شكلا لكن ملائكته ولا سعطاه وحبال لك قرية وهكذا وهكذا سيدا درت أيو الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به صونك أنا إسكالة أنا أمال مرين يوغيري رب العزة سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وسلم مركو هلكا مرة يوحويري إذن صونك هدو نقضي عمل ألا ليه عجائب تاسنا أو ليه أجري بسنا أو سلا أو بدنيه فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط هدين له أحد كين ما نمت أو سوميه رفث يوسن سمين أوسن دمرك أو قلمون رفضك waxaa la yiraahdaa haween in loo galmoodo galmoonta waxaa la yiraahdaa islaantaada in la baashaashido hada wixii nin iyo naag iska doono jiraan ka doonatid waa mamnuuc rafadka isku sameeyni baa lagu yiri waxa la daba dhiga walaa yasqab yow qaylinin yow murmin qajajac iyo hadal fara badan looma baahna fa insaabahu ahadun aw qatala falyaqul inni saa'im sagoo qofkii sooman haddii qof ay ku bilaabo oo inuu waxay tamo ay noqoto ama uu qof dagaal ku bilaabo inuu la dagaalamo ay noqoto yoosan qofka ay iyo dagaal ugu jawaabin hay yiraahdo warwaan soomanayniyo wada warwaan soomanay farha iga qaad hay yiraahdo nabigu yiri salawaatullaahi wasalaamu alayhi haddaad soomanta waa inaad sib tiraahdaa qajajac iyo qaylo iyo soon ma iskeeni karaan allah hadduu qadaro waxaan gaari doonaa soonka marka qofka uu sooman yahay ajriga uu leeyahay iyo waxyaalaha ajrigaas oo dhan uu ku wey doono oo nabigu noo cadaynaya sallallahu alayhi wasallam laakiin hadda mawduuca qaybtaas xadiidka ayay soo dhex gashay waxaa lagugu yidhi haddaad soomantahay qof alla caytamin ha la dagaalamin hadduu wax kugu sameeyana waan soomanay ku ilaah halkaa iska taag nabiga ilaahay saasoo oranaya sallallahu alayhi wasallam waxaana lagugu yidhi wax walbo soonkaaga dhaawacaya iska ilaali maxaa kuula sii xiriira walaa khaluufu fami saa'imi cinda allahi adyabu min riixi lmiski qofka sooman afkiisa waxyaalaha saaran alle agtiisa miskiga caraftiisa way uga odeeg badan yihiin buu yidhi khaluufka waxaa la yidhaha qofku markuu sooman yahay naabta iyo waxyaalaha ka saaran ilkaha dadka qaar waxay khaluufka u qaateen in loola jeedo yaan la cadayanin oo qofka soomanu cadayanin haddii 6 saac la gaaro rasuulkana axaadiis saxiixa looga hayaa salaad walba u cadayo iyo wasaqaad walbana cadayo salawaatullaahi wasalaamu calayh marka dadka khaluufka u haysta caday la'aanta in loola jeedo aad bay u qaldameen khaluufka waxaa loola jeedaa qofku markuu gaajoon yahay daa'iman ilkihiisa way isbedelayaan iyo faruurihiisa laakiin lagama hadlayo wasaqda afka ku jirta waa in qofku cadaydaa bal marka aad dukanaysa daa'iman soo cadayo xadiis oo albaani ku saxiixinayo yani saxiixu targhiib wa tariib muxuu ku leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi qofku markuu salaada dukanayo hadduu cadaydo malag baa u imaanaya malaggu markuu adnaa lahu waa u soo dhowaan qofku hadduu cadaydo uu yidhi yani malag muxuu sameey adkhala almalag malaggu wuxuu afka u gelinayaa fi fami shaksiga afkiisa afka ku qabanaya quraanka uu akhrinayaa malagga calooshiisa ku dhacayaa buu yidhi sallallahu alayhi wasallam haddaadan cadayan agtaada unbuu istaagaya afka kugu qaba maayo oo afkaagu soo urayo waxaa la doonaya ilkaagu inay aadan yani afkaagu nadiif u yahay oo afku soo uraynin waa inaad ku dadaasho afkaaga inaad cadaysid laakiin suxuurtii aad cunto badirada inay ku jirto ilkahaaga oo afkaagu uu si kala yahay aadna tira waan soomanaa subxaanaka lama bana qadiyada noocaas culammada qaar waxay sheegayaan shaaficiyada qabta yaan la cadayanin iyo rijaal kale shaaficiyada hadday qowl noocaasa qabto imaam shaafici waxaa tirmidi ka soo naqliyo sunanka tirmidi ku qoran maalinta awalkeeda iyo aakhirkooda qoraxda markay sii dhacayda qofku markuu soomayo soonku waa isla mid ayuu yidhi shaafici qowl noocaasana inuu leeyahay ku darsada jeebka haddaa kan ku aragteen kutubta qaarkeed oo aad maqasheen shaaficiyada warkaa qabta midda kale shaaficiyadu haddii aadda alla qabtoo la qadaro oon xataa warkale laga helayn imaam shaafici ilaa imaam shaafici baa laga hayaa ayada halkaana sunanu tirmidi buu ku qoraya kitaabu siyaam buu ku qoraya hadday dhici leed arrintaas ayada ah ma waxaad yeelaysaa raacaysaa shaafici mase nabiga sallallahu alayhi wasallam mas'alada haddaad aragtid in mas ay leedahay naska raac amaa culammada waxaad leedahay jazaahum allah raximahum allah way dadaaleen laakiin likulli jawaadin lahu kabwa baxdoy kasta iyo mid kastoo orod badan maalin buu hantaa turoodaa iska ilaali taas yani ha ku qaldamin qofka bani aadamkaa qofku waa bani aadam wax un baa ka imaan karaya taas ayaa lagaa doonaya inaad garatid qofka sooman afkiisa xayaabada saaran miskiga alla agtiisa way uga caraf badan tahay rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam lisaa'imi farxataani yafraxahumaa qofka sooman 2 jeer ayuu farxaa 2 farxidood ayuu leeyahay oo ku farxo idaa afdara farixa bifidri wa idaa laqiya rabba farixa bisawmi markuu afuro waxuu ku farxaa soonkiisa afurkiisa waayo qofka soomane markuu afurayo aad buu u farxayaa bal ka warran dadkii maanta dhan cuntada soonka cunayey marka la afurayo dhib baa haysta ayagoo dhan cidhiidhi bay dareemayaan
dadka soomanayna waxay faraxsan yihiin farax cajiiba ilaah baaba niyadda u gelinayaba markuu rabbigii la kulmana soonkiisu fadliga uu leeyahay ayuu ku farxayaa buu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka soonku qaymahaas ayuu iska leeyahay axadkii garanaya waa inuu ka faa'iidaystaa soonkaas fadligaa iskale midka waajibka iyo midka sunnada uma qaybsanaa kan waajibkaa ha sii fadli badnaado saan ogaan doono laakiin kulli fadligaasoo wada leeyahay soonka xadiidka asagaa waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim waxaa laga wariyay abu hurayra riwaayad bukhaari waxaa ku sugnaa rasuulku inuu yidhi sala allahu calayh wasalam rabbi waxau odhanayaa yatruku shahawatahu wa dacaamahu min ajli assiyaamu lii wa ana ajzii bih axadka soomanu cuntadiisii iyo cabiddiisii iyo shahwadiisii aniga dartayba uga tegey soonka anaa iskale anaana amaal marinaya waalxasanatu bicasharati amhaaliha xasanadana 10 jeer baa la lama laabaa kale laakiin soonka anaa iskale anaana amaal marinayo alla leeyahay subxaana wa tacaala rabbulciza anaa iskale buu yidhi anaana amaal marinaya waan ka amaal marinaya qofka amaalmar aniga mooye cid kale aysan garanayn axad walbow fursaddaas yay ku dhaafin fursaddaas soonku yay ku dhaafin isniinta iyo khamiista ka soon maalmaha aan yacni ramadaan ku jirin ramadaanka marka la gaarana ka faa'iidaysta waa fursad cajiib badana oo aan dib kuu soo mari doonin marka aad loo eego rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi markuu ka sheekaynayay soonka cajaa'ibtiisa inna fi ljannati baaban yuqaalu lahu baabu rayaan waa soon oo dhan mid waajib iyo mid sunnaa farqi ma lahan jannada dhexdeeda waxaa ku yaalla albaab la yidhaha albaabka dheregta baabu rayaan waa la wabxaa dadku way dhergaan rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yadkhulu minhu saa'imuun dadka sooman baa ka gala albaabkaas albaabkaa asaga oo baabka rayaanka la yidhaha dadka saa'imiintaa bis baa ka gala cid kale kama gasho xadiidkaa marka muslim iyo kayrka iyo tirmidi qoreen waxuu tirmidi ku yaadiyey waman dakhala axadka albaabka asagaa gala lam yadma abada weligii ma oomo bacdu riwaayaat waxay leeyihin ibnu khuseyme iyo kayrkii ku sugan faidaa dakhala aakhiruhum dadka sooman qofka ugu dambeeya markuu galo uqliqa hada albaab albaabka dhan waa la xirayaa waxay riwaayadaha ibnu khuseyme iyo kayrkii leeyihiin ku kordhiyeen waman shariba lam yadma bacdaha abada qofka halkaa ka cabaa dib uma oomo dib dambe oon rijo kama qabo qofka baabu rayaan ka caba baabka wabxidda dhergidda waa cajiib waxaa baabka asaga gelaya dadka soonka ilaaliyey oo kan waajibka inta ilaaliya mid dheeraada weliba ku dara ninkaas soomaya oo soonkiisa laga yeelayahay waa nin soo ilaaliya diinta ilaahay nin aan salaad dukan haddou sooma soon laga aqbali maayo ha ku talagelinina yow ku talagelin ninka soonkiisa la yeelayaa waa nin alla ku xihan dembibaha ka dhaco qofka bani aadamka waa dembigu ka dhici kara xataa kabiiro waaweyn baa ka dhici karta laakiin yow xallilanin yowsan shaqo iyo waxuu daa'ima ka dhiganin waxuu deg deg uga laabta ha noqdeen kalad waa kaa dhacay haye deg deg uga laabo salaada iyo inaan ka tagto waajibaad ha isku dayin laakiin haddaad isku daydo wax soonoo lagaa yeelaya ma jiraan maxaa yeelay sidii alla u soonku yidhi ma aadan soomin allana waxuu aqbalaa camal waafaqsan camalkii nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh soonkana waxaa loo diray dad rabbi oqoonsadoo rasuulka raacay oo dariiqaa mooye dariiq kala diiday salaadana ilaaliyey ka gadaal baa le ordaha sooma hadday xoolo lahaayeenna ka sakeeyey laakiin nin aansa ka bixin nabiga sunnadiisa raac marka la yidhaha kugu oranayo ma doonayo qur'aanka kaala baro marka la yidhaha oo ku dhaqan 14 iyo 100 ka aqaan ka akhrisamaa la yidhi waa laga mahmaahay halkaa la taagan yaa ninka asaga soonka meeshuu geysana isaga yaqaan maxaa yeelay yaad u soomaysaa diintii soonka ka hadlaysaa ma ogolide waa qariib waxaa weeyaan diinta saa doonta u baro 14 iyo 100 ka aqaan ka akhrisama waa laga mahmaaho kuleeyahy mahmaahayada soomaalida waxay u haysataan diin waxay ku leeyihin mahmaahayo waa madhab shanaad qofka fikraddaas qaba ha ogaado waa fikrad gaala ay leedahay hadalka isaga mahmaayo madhab shanaad maahan mahmaahayana diin maahan axadka mahmaayo diin ka dhigtaana diin ma haysto waxay keliya tahay axadka yacni waayeelka hadallada uu sheego hadday murti leeyihiin waxaa la odhan karaa war nin shaacir ah nin gabyaay ah ama nin odaya ayaa hadal noocaasa yidhi daliil maahan waa iska murti waxay laga yaabaa meesha aad ka hadlaysa marka inay munaasib u tahay hadal noocaas oo kalea in la keeno laakiin ma ahan inaad tidhahdo waa madhab shanaad ama waa diin kale rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam allah subxaana wa tacaala maxaa u sugan cutaqaa lilah fii kulli layla rabbi wuxuu leeyahay hameen kasta dad naarta laga xoreeyo hameen kasta wuxuu yidhi walilaahi cutaqaa fii kulli layla hameen kasta waxuu ilaahay iska leeyahay dad la xoreeyo oo naarta rabbi laga xoraynayo oo janno ilaahay u waajibi doonto waa hameen kasta oo ramadaanka 29 iyo 30 habeen midoo noqda ka mid a faa'iidada iyo fadliga soonka iska leeyahay taas ayaa ka mid ah axadkii doonaya inuu ka faa'iidaysto bisha ramadaanka waxaa naloo sheegayaa in bishaas oo dhan hameen walba dad naar u waajibtay naar laga xoraynayo waa nasiib darro marka
axadka hameenadaas la xuraynayo wax mid ka mida ku biiri kari waaye nasiib darro weeye musiibo weyn ayaa qad waqacad calay dushiisa ku dhacday xadiidka asaga waa xadiid xasana waxaa soo saaray tirmidi ibnu maajah ibnu xibbaan xaakim iyo rijaal kale oo fara badan wuxuuna noo sheegayaa xadiidkaas inuu yahay xadiid cajiib ah awala layla oo min ramadaan ka mid ah waxaa dhici doona ayaa nala baray sidaas ayayna ku soconaysaa hameen walbana waa sidaa